سلام يا سلام يا hoggaanka sare ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani oo horkacayo gudoomiyaha xisbiga wadani ahna gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ciro ayaa maanta soo gaaray magaalada Berbera kuwaasi oo ujeedada socdaalkoodu u daaranaa soo dhaweynta taageerayaal tiro badan oo ku soo biray xisbiga wadani kuwaasi oo ka soo diga rogtay xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye waxaana taageerayaashaasi horkacaya afayeenkii hore ee xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye Cali Axmed Kooshin munaasabadaasi oo ka dhacday xafiiska uu xisbigaasi ku leeyahay magaalada Berbera ayaa waxa ka soo qayb galay taageerayaal tiro badan oo buux dhaafiyay barxadda hore ee xafiiskaasi iyo mas'uuliyiinta xisbigaasi oo ah xildhibaan Siciid Cilmi Rooble Axmed Cumar Xaaji Cabdilaahi Xamarji Cali Kubad Marwo Faadumo Siciid Ibraahim iyo wasiirkii hore ee arrimaha gudaha Maxamed Nuur Caraale Duur ugu horreynna waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Saaxid Axmed Cali Faxle iyo mas'uulka ugu tunka weynaa oo la soo dhaweynayay oo ahaa Cali Axmed Kooshin waxaana ka mid ahaa hadalladoodii sidan idinka doortay maantana wadani baa dooranaysaan Berbera waa wadani Saaxil waa wadani walaalayaal cid loogu ballan qaaday lacag miyay jirtaa cid seeraf loogu ballan qaaday miyay jirtaa waxaan ku yiri Saaxil waa taa gaar ahaan taageerayaasha faraha badan ee karaamada leh ee ila socday ee galay xisbiga kulmiye waxaan idinka raalli gelinayaa hudheelkaynu kuraysanay kuriya labadii boqol ee kursi aynu kuraysanay aynu tegaynay ee xukuumaddu inaga joojisay ee saaxiibo badan oo ila socday ay ka cadoodeen ay igaga baqan yihiin oo ku dagaalanaynu diiday la dagaalamayno ayagu wali walba waxay ku qabtaan jaamacadda dawladda dadku wada leeyahay aniguna keligay baa kulmiyey iyo taageerayaasha ila socday baa ka tegay oo ciriyo dhulba waa la fadhii waay aniga waxaa ii farxada inaanu raggaanu kulmiye wada joognay maanta wadani ila joogaan huriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Sigaayo runtii waxaan leeyahay xisbiyo hore ayaa gacanteena ku dhintay waqtigeenu wada shaqaynaynay mudane madaxweyne xisbiga kulmiyada gacantaada ku dilay marnaba waan ka codsanayaa hannaga aba aanu ka helo aba aan naga helo laakiin tiise ha noqon oday dimuqraadiyaddii gacantiisa ku baabiiyey waxaa la yidhi wuxuu yidhi Berbera way xanuunsanaysaa dabadeetana wuxuu yidhi waxaan u soo dhibay dawadii Siciid baan u soo dhibay dawada uu ii soo dhibaan idiin sheegayaa dhegeysa dalka Berberi way ka duwan tahay sida loo xukumo gobolada kale looma xukumo dawladdan iyo dawladdii ka horeysaba isku sibay u xukumayeen cadaadis baa lagu hayaa waa la gumeeyaa shacbigeeda waxa weeye waxaanu idiin sheegaynaa wadani waa ka idinka saaraya gudnimada gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay Marwo Faadumo Siciid iyadoo halkaasina ku soo dhaweysay mikrofoonka gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani ahna gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ciro isagoo halkaasina ka jeediyay hadallo dhinacyo badan taabanaya waxaana ka mid ahaa hadalladiisii sidan Berberay way maqlaysaa Berberay dulmiga waad ka bixi biyalaan laydikuma daynayo laydikuma daynayo warshadina sibirka la farataysan maayo يا سبيل وعلى حكومة Soomaaliland xisbigeeda waa la yaab taadi wadanka idinka haya dulqaad baa idinka baahan shuruuda caalamku ama Soomaaliland ha noqoto ama dunida kale ha noqoto shaqaalaha dawladda iyo ciidamada siyaasadda waa ka mamnuuc ninkii doonaya ee shaqaalaha
ama ciidama ah waa inuu marka hore mid dirays iska bixiyo ama shaqada ka tago haddii doonayo siyaasadda galo si kastaba ha ahaatee munaasabadani oo ahayd mid uu qiimaheedu aad u sarreeyo ayaa ka dhacday barxadda hore ee xafiiska kadib markii xukuumadda Soomaaliland u diiday inay ku qabsadaan hoteelada magaalada iyadoo hudheelka xafladaasi ka dhacaysay oo ahaa hotel Mansour ee magaalada Berbera gabi ahaanba lagu wareejiyay ciidamo tiro badan tanina ay u muuqato caburinta xisbiyada mucaaradka Cabdiraxmaan Maxamed Cige telefishinka caalamiga ee Royal magaalada Berbera